أنا ولالك إيوان بعتهريبي وهذا أنا رولي جاي متونو كمان لأن يدك يقول دواء صاحب هذا يسعد أوكي يا إلهي حق أنا استجانا وحوم برني إنه إلهي كنا يفوز ويقول geeskaygan waxaan saagan oo aan kula kulmay garoonka kubadda cagta ee Mira Awaare dhalinyaro iskood isku xilqaamay oo wacyigelin ku saabsan tahriibka wada soo dhawaada marka hore barnaamijkan wacyigelinta iyo gacan idinku siiyay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامنا أمان مدر الصوماليات كارها وحسي خاصة سلامنا مدر البتلان أنا وحا هين تيم دانيرا وسي القامة إلهي درتي اسكو القامة برنامج كان مركا أرغني عيقلين بوها مركا أرغني بنا ودنك إنو حاول أديكو جرو السياسة iyo waxyaabo khaldan wadankiisa galay aragna dhalinyarada cid u dirna haysa iyo cid u naxaysa jirin waxaan si ilqaam ugu kacay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Puntland oo dhamaantood dhalinyarada meeshaas muxuu ahaayay ku baaba'ay galabta waxaan wacyigelin ka sameynay garoonka Mira Awaare oo sportski muxuu ahaayay Puntland hataa dhalinyaradii ay ka yaacday meelaha ugu badan oo laga yaacay waxa kamid ah dhalinyarada sportska ahay waxa yaacay ardayda jaamacadaha marka aragnay in dhalinyarada ku baaba'day barnaamijkan ilaa imisa wadeen barnaamijkan waxa wadnay muddo bil ku dhawaad ah ay 20 beri caqabad walba kala kulanay cidna wacayda waa aragnay cidna waa afragaadaysa waa aragnay cid anaga xataa muxuu ahaay nafteena xataa waa aragnay laakiin barnaamijkan waxaan diyaar u nahay anagu inaan meel walba aan gaarsiino ilaa heer madaxweyne aan gaarsiino anoo dhalinyaro Soomaaliyeed baan nahay wax u mahad celinayaa wasiirada gargaarka wasiirad ubax dhalinyarada hadii aysan jirin ciidan u hayso maxaa u danahay iyaga waxa u dan dhalinyarada in muxuu ahaay ninka dhalinyarada oo Soomaaliya waxa kula talinaya tutulada qaadanayo inuu maamada hooyis isku oohaysin inuusan odaga aabiisa u sadhibin inuusan muxuu ahaay wadkiisa iyo ciidiisa u joogo waayahay boor baa idin daabacan boorkan iyo idinka caawiyay daabacaadiisa boorkan waxaan iga caawiyay wasiir ubax wasiirada gargaarka dowladda Puntland ilaahay qarasiyo iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Nugaal Muxtaar Faarax Jeer isna xagan kana oo mahad celinayo